meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada saaxiibayaal warka galwareed media qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo saxiixay sharciga batroolka dalka isagoona maanta u dhoofay Itoobiya ciidamo kala taabacsan dawladda iyo kuwa jaran oo dagaal culus ku dhex maraya gobolka Gado dawladda federaalka oo soo furatay caruur ay si qasab ah ku askareeyeen al-shabaab hogaamiyaha xisbiga wadajir shaaciyay 6 qodob ay ku fashilantay dawladda Farmaajo Cabdirashiid Janan oo ka warbixiyay sida uu uga baxsaday xabsigii dawladda Soomaaliya ugu xirnaa Muqdisho intaad maqasheen wixii ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka caalamka haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawade subscribe dhig channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 8 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowno markaan xaaladda gobolka Gado wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa sheegay in israasaaseen xoogan laga maqlay gudaha degmada Balada Xaawe ee gobolkaasi israasaaseenta ayaa timid kadib markii ciidamo taabacsan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ay gudaha u galeen qayb ka mid ah degmadaasi sidoo kale wararka ayaa sheegay in ciidamadaasi kuwa dawladda federaalka ay ku sugan halkaasi ay isku dhaceen isla markaana uu dhex maray isku horimaad kooban ila deegaanka ah ayaa caasimada Online u xaqiijiyay in dagaalkaasi hal askari looga dilay wasiirka amniga Jubbaland ciidamadii taabacsanaa ee Balada Xaawe ku soo qaaday halka laba askari laga dhaawacay dhanka ciidamada dawladda kuwa oo kamid ahaa ciidamada booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa Haramcad maalmo ka horna la geeyay gudaha degmada Balada Xaawe dadka aan la hadalnay ayaa sidoo kale sheegay haatan xaaladdu ay degan tahay isla markaana ciidamadii Jubbaland ay dib ugu laabteen duleedka degmada Balada Xaawe oo ay markii horeba ka yimaadeen halkaasi oo ay ka wadeen maalmahan dhaqdhaqaaqyo xoogan ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan xaaladda kacsanaanta ay ka jirta halkaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka Gado dawladda federaalka ayaa maalmihii u dambeeyay isku fidisay gobolkan iyadoona ay Jubbaland dhankeeda bilowday dhaqdhaqaaqyo ay uga hortagayso ciidanka dawladda Cabdirashiid Janan oo maalmo ka hor gaaray degmada Balada Xaawe ayaa halkaas ka wada dhaqdhaqaaqyo xoogan ciidamo aad u hubeysan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la sheegayaa in uu halkaas ku soo bandhigay ujeedkooduna yahay sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen degmooyinka kala ah Balada Xaawe Doolow iyo Luuq oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamo taabacsan dawladda federaalka oo diyaarado looga soo daabulay Muqdisho wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo toddobaadkii hore ka baxsaday dawladda Soomaaliya ayaa horkacaya dhaqdhaqaaqyada ciidan halkaas ka socda Cabdirashiid Janan oo xirnaa dharka militariga ayaa maanta mar kale lagu arkay dawladka Balada Xaawe halkaas oo shalay markii ugu horeysay uu ka soo muuqday tan iyo markii uu ka baxsaday guri ugu xirnaa dawladda Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Jubbaland iyo saraakiil kale ayaa iyagana la sheegay inay qayb ka yihiin qorshaha lagu doonayo in dib gacanta Jubbaland lagu soo celiyo degmooyinka ka tirsan gobolka Gado maalmihii la soo dhaafay ayaa dawladda Soomaaliya waxay gobolka Gado u dirtay boqolaal ciidamo iskugu jira kuwa booliiska gaarka u tababaranay loo yaqaan Haramcad iyo kuwa danaba kuwaas oo la wareegay Doolow iyo Balada Xaawe ahaa deegaana ay awood badan u ku lahaa Cabdirashiid Janan madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta saxiixay sharciga batroolka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyaddu ay soo dhameystireen hanaankii sharci ay kaga aadanaa dhaqangalkiisa madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda uu shacabka iyo dawladnimada Soomaaliya u leeyahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniinta ay u leeyihiin in looga faa'iideeyo kheyraadka gaaga dhulkeena isagoo xindaab u noqonaya kana ilaalinaya tagrifalka damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa sidoo kale meelmarinta sharciga batroolka waxay maalgashayaasha caalamiga u muujinaysaa sidoo uga go'an tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ka meeldhalinta higsigooda ku aadin xasiloonida dalka iyo inay si wada jir ah ugu talaabaan guga barwaaqa sooranka iyo horumarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka golaha xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan qubarradii Soomaaliyeed ka qayb qaatay uga mahad celiyay dadaalka ay geliyeen sharcigan dhaxal reebka ah sharciga batroolka ee uu meel mariyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku saleysan sharciyadii batroolka iyo macdanta dalka dastuurka iyo heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ee lagu saxiixay Baydhabo dhanka kale madaxweyne Farmaajo ayaa saxiixida sharcigan kadib waxa uu dhoofay maanta dalka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa
Ababa ee dalka Itoobiya wax yar kadib markii uu saxiixay sharciga batroolka. Safarka madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo aaday iyadoo ay ku beegan tahay 8 Febraayo 3 sano guuradii ka soo wareegtay markii loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya. Koor intaanu madaxweynuhu ka dhoofin garoonka waxaa la xiray wadada ka baxda madaxtooyada hormartana dekada Muqdisho ilaa Iskool Buluusiya. Madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uga qayb galayo shir madaxeed ka mid ah Afrika ee sanadlaha ah. Madaxweynaha ayaa bilihii u dambeeyay safarada ugu badnaa ku tagay magaalooyinka Casmara iyo Addis Ababa oo madaxda labadaasi dal ay ku mideysan yihiin isbahaysi saddex geesood ah oo iskaashiga dhaqaalaha iyo isdhexgalka saddexda dal ee Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya. Xilliga oo la ku jiray Farmaajo waxa madaxdii hore ku horeysay ku eedeyn jiray safarada badan ee dibadda iyo jidadka xiran ee magaalada ahaatee si taasi la mid ah ayuu qaaday dhaqankii uu madaxdii isaga ku horeeyay ku eedeyn jiray. danka kale hogaamiyaha xisbiga wadajir ah oo naqdiya dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa eedeyn ku lujeediyay madaxweynaha Soomaaliya isagoo sheegay inaysan jirin wax ay qabatay dawladdiisa. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shir jiraayad ku qabtay hooygiisa ku yaala Muqdisho ayaa sheegay in 3 sano dawladda Farmaajo maanta u buuxsantay ay ku fashilantay waxyaabihii loo igmaday ay ballan qaaday. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaaciyay 6 qodob oo ku sheegay inay ku fashilantay dawladda sida dhamaystirka dastuurka, dhismaha ciidamo qaran oo mas'uuliyadda amniga dalka kala wareegay ciidanka AMISOM oo haatan magan loo yahay isla markaana ilaaliya xafiiska madaxweynaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda ay sidoo kale ku fashilantay qorshaha amniga qaranka ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka looga xoreyn lahaa Al-Shabaab. waxa kale oo Xuseen dawladdu ay ku fashilantay dib u heshiisiin guud oo dalka laga hirgeliyo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa tilmaamay in dawladdu ay suurtagelin weyday isla markaana abuuri weyday jabi wada hadal oo ku aadan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Master Warsame ayaa sidoo kale cadeeyay in dawladdu aysan keenin siyaasad arrimo dibadeed oo fadhisa si looga samatabaxo loolanka juqraafiga siyaasadeed iyo isbedelada adduunka iyo Geeska Afrika, isla markaana arintoodan ku soo koobantay shirka Abiy Ahmed Asiyaasi Afweeki iyo madaxweyne Farmaajo ku aadan iskaashiga dhaqaale iyo midka isdhexgal. Inkastoo Cabdiraxmaan Cabdishakuur diiradda saaray qodobadan oo u badnaa waxyaabihii madaxweyne Farmaajo ka hadlay intuu ku guda jiray ololaha, haatanna waxaa jira waxyaabo kale oo dawladdu qabatay inkastoo amnigu uu yahay mid aad ugu hooseeya halkii madaxweyne Farmaajo uu yimid markuu xilka la wareegay. waxaa laga rabay dastuurka inay dhamaystirto sababtoo ah dastuurka wuxuu asal u yahay heshiis bulsho oo dadkan ay ku wada joogi karaan dalka. ciidamo qaran lama dhisin oo qaran Soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas'uuliyadda kala wareegaan ciidanka AMISOM. dawladdu wax wada hadal dhabax lama gelin, walaalaha Somaliland lama gelin, waa qodobada aasaasiga ah oo dawladda looga fadhiyay si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin. dawladdu ma aysan sameeynin iyo dib u heshiisiin guud oo dadka Soomaaliya loo sameeyo. dawladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka ku soo kordhay, gobol ku soo kordhay iyo isbedelada guud ahaan Geeska Afrika dhacaya. madaxweynaha Itoobiya, Eritrea iyo madaxweynaha Soomaaliya oo shiraya oo leeyahay waxaan sameynaynaa 3 geesood iskaashi dhaqaale aan sameynaynaa in ay intaasi ka soo dhamaawayso dawladdii. waxaan leenahay dawladdaanu 3 sano ay jirtay way fashilantay, muhiimooyinkii ugu waaweyn dalkan loo xil saarana way ku fashilantay. dawladda federaalka ayaa soo furatay caruur ay si qasab ah ku askareeyeen Al-Shabaab. maamulka gobolka Bakool ayaa ka warbixiyay howlgal ay ciidanka xoogga dalka ku soo furteen caruur la sheegay in si qasab ah loo askareeyay oo kooxda Al-Shabaab ku tababarisay deegaan hoostaga gobolkaasi. gudoomiyaha amniga degmada Xudur Ibraahim Isaaq Ibraahim Shaati oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in caruurtaasi oo gaarayay ilaa 8 gacanta lagu soo dhigay kuwaas oo lagu haystay deegaanka Doodaaliye gobolka Bay. sidoo kale waxa uu tilmaamay in caruurtaasi inta badan si xoog ah looga qafaashay dhulka miyiga ee gobolka Bakool. Ibraahim Shaati ayaa sidoo kale inta ku daray in ujeedku uu ahaa in caruurtan yaryar loo adeegsado dagaalka ay dalka ka wado kooxdaasi. xilliga la qabanayay ayuu sheegay in la socdeen mootooyin nooca 3 lugooleyda ah oo marayay inta u dhaxaysa deegaanada Abal iyo 20 jiro isagoo carabka ku dhuftay sidoo kale la qabtay 2 darawal oo kaxeenayay mootooyinkaasi. ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqin haatan caruurta lagu hayo saldhigga booliska Xudur halkaas oo su'aalo lagu weydiinayo. daawadayaal waa naga inta warkii aad kala socoteen Galwareed Media.